wakiilka dowladda Djibouti fadhiya Somaliland Xuseen Cumar Kawaaliye oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiska safaaradda dalka Djibouti ku leedahay Somaliland ayaa si kooban uga hadlay waxyaabihii u qabsoomay sanadka la soo dhaafay ee 2018 iyo adeegyadii ay u fuliyeen jaariyadda Djiboutiyaanka ee ku nool gudaha Somaliland ee berigii hore adeegyada u doonan jiray dalka Djibouti. waxa ugu horeeya 53 agdinasaas ma bixinay waxaan ku xijisnay certificate de naissance cadayntii naissance oo 300 waxa kale oo cadaynay oo certificate de vie dadkii retraite qaadanayay 108 waxa kale oo meher cadaynay 340 waxa kale oo dadkii warqaduhu ka dhacay baasaboorku ka dhacay ee inay wadankooda ku noqdaan jeclaa aanu sameynay la sibaasay go'oma 3 dadka waalidada cadaynta ubadkooga waxaan u sameynay si ay autorisation parental wax la yiraahdo 8 iyo leete 20 dhimasho Allah u naxariistay oo reer Djibouti ku dhintay geega Soomaaliland waxa hadaba waxa ila jooga maanta Dr. Said Abdullahi Good oo ka soo jeeda qowmiyadda Djibouti oo doctor aad looga yaqaan Jamhuuriyadda Djibouti iyo geega Soomaaliland isagoo matalaya jaaliyadda reer Djibouti joogta Soomaaliland waxa kale oo xaqani aan uga direynaa anagoo isla joognaan iyo doctorkuba hambaliyadii sanadka madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa koobaad marwo Khadra Maxamuud Xay iyo xukuumadda Djibouti iyo ummadda reer Djibouti daafaha adduunka meeshii doonaa baa ka joogan waxaan leenahay sanad wanaagsan. safiirku wuxuu aad ugu mahad celiyay wada shaqaynta fiican ee ka dhaxaysa xukuumadda uu hogaamiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo cilaaqaadka ka dhaxeeya dalalka Somaliland iyo Djibouti. talabaad wadanka joogna Somaliland madaxdooda ugu horeeyay madaxweynaha Muuse Biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo xukuumadda Somaliland iyo shicibweynaha Somaliland badamaantood waxa kale leh sanad wanaagsan oo bashbash barwaaqale ayaa kale loo hawada uu soo marinayna anigoo mudan Xuseen Cumar Kawaaliye oo representantga Djibouti u jooga Somaliland waxaan leenahay waxa oo hawla ayaan qabanay waxaan u fadhinaana waa reer Djibouti aan la hadlaynina waa Somaliland iyo reer Djibouti khaasatan reer Djibouti waxaan leenahay soo dhawaan galiya xafiiskiina yimaada si waxna nagu qaban karo ay jamhuuriyadda ay dawladda Djibouti ni ogaato midda labaad waxaan ni ogeysiinayaa sanadka maanta bilaamay imika 2019 ina hadda toole wixii sanadka ku dhasho dhan agdinasaaskii oo dhan aan ka siinayno xafiiska aad ku leedihiin Somaliland.